wararka la xiriira dagaalka maalintii afraad ka socda laascaanood ayaa noqday ciwaanka ugu weyn ee wararka Soomaalida iyadoo si weyn la isku weydiinayo halka uu ku dhamaan karo dagaalka socda marka la eego awoodda ciidan ee uu haysto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah korneyl ciidan oo mayal adag waxay dad badan si sawiranayaan inaan looga adkaan karin dagaalka laascaanood sidoo kale magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxaa maalintii afraad ka soo gudbay gaadiid dagaal oo culus iyo ciidamo infantry ah oo fara badan marka laga cabir qaato sida wax ku socdaan iyo dagaalka ka socda gobolka Sool waxay khuburada ciidanku ku tilmaameen inuu la mid noqon karo dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ee Itoobiya waxaa jira laba qodob oo ay daliishanayaan khuburada ku doodaysa inuu dagaalka laascaanood la mid noqon karo kii ka dhacay gobolka Tigreega ee Itoobiya qodobka koowaad ayaa ah madaxweyne Biixi oo awoodii ciidan ee Soomaaliland oo dhan u raray gobolka Sool taasi oo la mid ah tii gobolka Tigreega uu Abiy Ahmed ugu raray ciidanka Itoobiya oo dhan sidoo kale hogaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa korneyl ciidan oo military ah si la mid ah sida ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ay labadan qodob iska shabahan marka laga soo tago qodobadan ay isaga eg yihiin labada hogaamiye ee Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi waxaa jira qodobo kale oo ay ku kala duwan yihiin labada xaaladood midda ugu muhiimsan waa inay Soomaaliland si weyn u raadinayso wada hadal iyadoo aan u oomanayn dagaal waxaana jira inay xukuumadda madaxweyne Biixi raadinayso in wax walba lagu dhameeyo wada hadal dhinaca kalena odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa wada dadaalo ku aadan sidii loo wada hadli lahaa iyadoo xabadda la joojinayo sidoo kale waxaa la soo tabinayaa inay dawladda dhexe ee Soomaaliya wado wada hadallo labada dhinac ah oo ay ku cadaadinayso in miiska wada hadalka la isugu yimaado taasi oo ay Soomaaliland dhinaceeda u ololeynayso waxaana macquul ah ayaa la leeyahay inuu shaqeeyo cadaadiska ay dawladda federaalka Soomaaliya saarayso labada dhinac ee ah in la wada hadlo waxaana suuragal ah inay dawladda Djibouti noqoto xudunta wada hadalka sidoo kale waxaa wali ka socda magaalada Laascaanood barakac shacab oo xoog leh iyadoo ay dadku naftooda kala baxsanayaan dagaalada ka socda Laascaanood oo galay maalintii afraad sidoo kale wakiilada caalamiga ah ee loo yaqaan C6+ ayaa la soo sheegayaa inay khadka telefoonka kula hadleen labada dhinac si gaar ah waxaa loo xaqiijiyay inay la hadleen waxgaradka gobolka Sool oo ay u sheegeen inay ogolaadaan xalka iyo wada hadalka iyadoo ay dhinaca Soomaaliland kala hadleen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay ka wada hadleen sidii loo dhameyn lahaa xiisadda colaadeed ee ka taagan Laascaanood sida muuqata waxaa socda dadaalo caalami ah oo dejin kara xiisadda Laascaanood ka taagan dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay ee sababtay dhimashada iyo dhaawacyada faraha badan ee halkaas ka dhashay intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Laascaanood iyo dadaalada socda muuqaalkan gaarsii asxaabtaada